assalaamu calaykum. Waxaan isleegi doonaa saddex dhibaato oo laga dhaxlo daawada la ismariyo noocda la isku cadeeyo. Haddaba waqtigan aan joogno ma jiro adduunka qof fool xun, qof kasta laba haad buu isku dhuftay, dibadna waa is cadeeyay, dibadna waxaa la moodayaa xabad yar oo carab ah. Haddaba diintan islaamkana waa ay reebtay in jirkeena bedelo oo aynu wax ka bedelo. Haddaba waxaan ku hadlaynaa daawada noocda kiimikaal kale ee wax lagu dardaray. Lambar 1 waxa ay ka dishaa difaaca maqaarka oo xanuun kasta iskama celin karo, way jirkeen Ilaahay waxa inoogu sameeyay xab iska difaaca xanuunada. Lambar 2 waji cambus yacni waji duduubnaan iyo inaad markiiba gabowdo gabowguna uu ka muuqdo jirkaaga. Lambar 3 dhaqaale burbur baahsan oo aad la mid tahay ninka qaylaya ee kaga soo kacaya kabarka habeen kasta 5 minjood ama marduuf macal sigaarkoodii wata ogow kaasuun baa isku mid tihiin. sidoo kale waxa kamid ah finankaas baxa wajiga yacni erlaji waji cuncun iyo hawlo kale fara badan. iyo waxa kamid ah in loo baqayo mustaqbalkaagu soo noqon doono wajigaagu ama jirkaagu waqtiga dambe way waxaad ka dishay maqaarkii iyo difaacii. walaal aadna soo sheeg wixii dhibaatooyin ah ee aad hayso ama aad taqaano. wassalaamu calaykum.